naagtan waa psychopath midda labaad oo isoo baxda waxay tahay kow ama inay qaniisad tahay ee gabadha jeclaatay ama inay gabadha markay diiday ee dilkan u geysatay inay wax ka sheegin dhaqaatiirta badankood ama neersiyaasha la shaqeeyaan dadka markay geeriyoonayaan waxyaalaha ugu horeeya ku sheegayaan waxay tahay qofka markay nafta ka bixi rabto uu dhiman rabo oo yaqiinsaday inuu dhimanayo waxa ugu horeeya ee arkaan waxay tahay dadka their loved one dadka jecel yihiin oo familkooda kamid ah oo hore u geeriyoodeen Sabrina markay dhimanayso waxay ku soo celcelinaysaa ayeeyo meaning ayeedeeda u jeeda she recognize inay dhimanayso taas waxa ka sii daran gabadhaaneetu waxa qoorta loogu duuduubay duct tape oo intaas la eg you know how many times duct tape qofka lagu wareejiyo ilaa intaas ay kaato duct tape markay ku dhiman weyday ee waxa ugu darta xarig markay ku dhiman weysay ee waxa ku sii darta xarigo kaleeto markay ku dhiman weysay ee waxay isku xirtay garbahay dhabarka intay ku isku xirtay ee waxay u gelisay madaxa bac bada markaa fiirsid waxay xiran tahay kastuuma yar iyo waxa xabadka yar u qarinaya aniga videoyaasha markaan arkay ee gabadha sa ula dhaqmayso laba waxa ii soo baxday kow naagtan waa psychopath Soomaalida waxa u maleynaa Soomaaliya cilmiga psychopath ama psychology wax badan dadka ma la baro laakiin waxa loo baahan yahay dadka society-ga Soomaaliya joogta in la baro psychopath aniga waxa aaminsanahay gabadhaas inay ayada kufsatay ee iyada sexually inay dhibaato u geysatay gabadha waxa lagu leeyahay private parts-keeda midiyay gelisay mindiyo ku yaala gabadha private parts-keeda xabadkeeda dhaawac baa ku yaalo timihii way ka xirtay adiga gabar markaa tinta ka xirayso waa qof maseersan ilaan quruxda dumarka waa timaha Soomaa timihii bay ka xirtay oo hoostii bay midi ka gagelisay oo xabadkii bay midi ka gagelisay why are you so obsessed with her private parts keeda iyo waxeeda midda labaad naagtan waxa u maleynaa ama shayaadiin bay la shaqeysaa ama dad dibadaha jooga iyo balaaya la shaqeysaa sababtoo tahay gabadha markay gubayso ee cadaabayso ee qanjuurinayso ee ceejinayso ee silcinayso way duubaysaa calaamadahaas waa calaamadaha psychopathka lagu yaqaan because waxay jecel yihiin markay qofka dilaan silciis inay arkaan they want to relive way ogtahay gabadha inay dhimanayso she's reliving the moment midda kale waxa kala saarwa ma ayadii kaliya waxaan isku hayso mise waxay rabtaa videoda way gadaysaa because dad waxa jiraan oo magac marbi inaad dhaho videoga laga xiro laakiin markay dareemayaan like waxyaalo sexually oo kale dareenku oo dareen adi isqajaanimada markay dareemayaan waxa dareemkaas ku dareemaa inuu qof kale cadaabaan inuu qof kale dilaan inuu qof kale nafta ka qaadaan inay ceejiyaan waxyaalahaas dadku waxay u maleeyaan dark romance laakiin dark romance waa sick and twisted fantasies waa cudur marka reer gaalkacayo fadlan hadduu videogan idin soo gaaro naagtaas haddii maxkamadda dili weyso adinka iyo idinka baxsanin reer gaalkacayo cadaalada linka rabaa reer gaalkacayo waxaa la rabaa Soomaaliya oo dhan inay cashir u dhigtiin waxaa la rabaa cadaalada gurigeeda inaad noqotiin inta kale waxaan ka yaabanahay aabahayaan waa walaashay waa tii iga yareed waa aniga waxaan tii ka weyneed curadi baa ahay walaalkay baa ahay curad iyo walaal iyo haddaa tahay maxaa see gabadha walaasha waxaan oo dhan ugu dhacaayeen how you didn't know seed u ogaan karin gabadha walaasha markay waxaan ku dhacaayeen seed u ogaan karin dhibaatooyinka mareysay intee ku maqnaad waxa seeta dhan maxaa walaasha adigu u haysan weyse ilaahay anigu ma kale laakiin hadii aniga amaantay hooyaday aabay dhintaan waa raadsanaya cuniga walaalkay ugu yaraa kulligood way burburan yihiin wiilasha way qurux baa ka muuqata shacniga ka muuqata dad caafimaad qabo waxay u egyihiin nolol fiican haystaan inta adiga noloshaas samaysanaysa see u ogolaatay gabar walaasha inay halkaas joogto saa loo cadibo ma ogeen haddaad ogeen maxaa u soo kormeeri weyday maxaa u arki weyday dowladda Puntland I hope inay tookadaan they show up and show out I hope they show up and they show out because sidaan si maba aha midda kale dad waxay dhahay 13 cunug ay qabtaa ayada iyo 13 cunug ba naftooda waxa ka qiimo badan gabadha yar ee u gashay ayada iyo 13 cunug waxa ka qiimo badan gabadha yar waxay ku sameysay because waxay ibn aadan yar oo maanta shahad nobel oo iyada lagu aaminay warnaagtaas ee to malakamoodka hal horgeeyo there's no way